gudoomiyaha garabka dhalinyarta xusbiga mucaaradka wadani oo warbaahinta kula hadlayay xafiiska ay ku leeyihiin caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa eedeymo kulul u soo jeediyay xusbi xaakimka talada haya kulmiye markii uu dhawaan magacaabay garabka dhalinyarta ee xusbigaasi kulmiye kuwaasoo xilar sarsare ka haya xukuumadda uu galwadeenka ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo waa sida hadalka u dhigay isagoo amuurtaasi ka hadlayana waxa uu sidatan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland 13 Sebtembar 2012 wuxuu soo saaray digriito mamnuucaysa in shaqaalaha qaranka iyo ciidamadu ay ku milmaan sina uga qayb galaan siyaasadda asxaabta qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu mar libaad isagoo ka qudbadaynaya qalanjibintii ugu dambeysay ee maxadka shaqaalaha dawladda uu kaga tiraabay digniin culusna hawada u mariyay inaanay sinaba shaqaalaha dawladdu asxaabta qaranka iyo siyaasadda ugu milmi karin labada digreetada iyo dhawaaqa madaxweynahaba waxa beeneeyay xisbigiisii kulmiye oo ka dhigay barkumataal iyo been oo magacaabo shaqaalihii dawladda oo ku sheegay garabka dhalinyarada heer qaran waa nasiib darro asxaabta qaranku inay garabyo dhalinyaro samaysataa waxay dhiirigelin u tahay dhalinyarada waana arrin la soo dhaweeyo mudan laakiin in shaqaalaha dawladda ee xeerku inaga mamnuucayo ee aanay ahayn sharafteena iyo sharciyadeenu la magacaaba waa ceeb aanu u aragno inay tahay sharci jabin waxaana dhanka kale fariin u diray gudoomiyaha hay'adda shaqada iyo shaqaalaha Sharmaake Axmed Geele inuu arrintaasi uu daba galo soo xaqiijiyo waxaan u gudbinaynaa hay'adda shaqaalaha dawladda oo faraynaa gudoomiyaha 3 meelood oo 2 meelood oo shaqaale dawladeed waxa ku jira laba isuduwaha wasaaradda macdanta iyo tamarta ee gobolka Saaxil iyo isuduwaha hay'adda quality controlka ee gobolka Togdheer iyo shaqaalaha hoosaad kale xeerka shaqaalaha dawladdu wuxuu mamnuucayaa oo xaaraana oo kulmiye xalaashaday shaqaalaha dawladdu inay ka muuqdaan siyaasadda asxaabta qaranka inay ololahaan uga muuqdaan inay xil ka qabtaan iyo inay ku dhex milmaanba ololuhu haba joogee xeerkii qaranka iyo digreetadii madaxweynaha waxa kufsaday oo ka dhigay waxba kama jiraan oo barkumataala gudoomiyaha xisbiga kulmiye markuu magacaabo shaqaalihii dawladda markuu magacaabo isuduwayaashii iyo markuu magacaabo xubno kaleba Umar Shaafi TV-ga caalamiga Rayo caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa